Ogharis wadada aaminsan inay leeyihiin awood rabbaani ah waxa mariyo oo dambaska dadka ay jirkooda mariyaan daba ilaa dacal waxa kale oo ay aaminsan yihiin inay leeyihiin sixir madow oo dadka wax yeelayn kara waxa ay cunaan hilibka dadka dhintay iyo waliba saxarada waxay sidoo kale weel ahaan u isticmaalaan qalfoofta madaxa bini'aadamka wadadka aynu maanta muuqaalkeenan ku eegi doona waxa ay ku nool yihiin wadanka India waxayna ku badan yihiin magaalada France ee waqooyiga India tiro ahaan waxa lagu qiyaasaa 70 qof oo kaliya inkastoo ay jiraan ila wareediyo inta ka badinaya iyo kuwa kale oo ka yareynayaba waa unda tiro ahaan aad u yar balse haddana leh cajaayib aad u fara badan ragooda wax mariyaa ma xidhaan oo aan ka ahayn dambaska ay dushooda mariyaan timahana ma jaraan oo waxa ay aaminsan yihiin in aan dabiiciga iyo sida ay ku dhasheen waxba laga bedelin cunidooda hilibka bini'aadamka haddii aynu eegno waxa kaliya ay cunaan dadka meedka ah ee dhintay balse cidna uma dilaan si ay cunto uga dhigtaan tan ayaana sababtay inaan wax dambiyo loogu qabsan cunidooda hilibka dadka dhintay waxa kale ay caan ku yihiin cunida qashinka cuntooyinka hadhaaga ah iyo waliba saxarada cibaad ahaan waxa loo maleeyaa Hindu balse way ka duwan yihiin gabi ahaanba waxay aad u aaminsan yihiin ilaaha saddexaad ee Hinduga ee la yiraahdo Shiva dadka qaarna waxay aaminsan yihiin inay yihiin jirkii ilaaha Shiva oo aad ay u qadariyaan waxayna aaminsan yihiin in ilaaha Shiva wax walba uu qaban karo iyaga waxayna u sameeyaan cibaadooyin gaar ah oo aad u cajaayib badan dhanka caafimaadkooda haddii aynu eegno dadkani waxay aaminsan yihiin in aanu jirin xanuun aanay daweyn karin waxay daawo ahaan u isticmaalaan saliidda ka soo baxda meydka bini'aadamka marka la gubo taas oo ay sheegaan inay aad u awood badan tahay waxa kale oo jirta in dadkani waqtiyada qaar daweyn jireen xanuunka baraska waxyaabaha kale ee aadka u la yaabka badan ee dadkani sameeyaan ayaa ah inay u galmoodaan meydadka iyagoo sheegay inay ka helaan daahirnimo maadaama ay aaminsan yihiin in dadka noole ay wasakh yihiin waxa kale oo ay sheegaan inay awood xad dhaaf ka helaan sameynta ficilkan argagaxa leh waxa kale oo xusid mudan in ninka Oghaariga ah ay mamnuuc ka tahay inuu la seexdo gabadh jirkeeda ka ganacsata sidoo kale waa dad qalbi xabxabiina oo aan cidna necbayn xayawaan iyo bini'aadam toona waxayna isku meel wax ku cunaan eyda iyo lo'da waxaana ay aaminsan yihiin in dadka iyaga necbi aan si dhab ah u fikiri karin marka daawada waxay ka dhigan tahay haddii aad dadka necab tahay waxba iyaga kama gelin mana aqoonsanaba wax nacayb la dhaho gaari dhanka da'dooda haddii aynu eegno da ahaan waxa la sheegaa inay aad u weynaadaan horena aanay u dhiman Oghaarigii ugu horeeyay ee dhulka mara amaba dadkan aasaasay waxa la oran jiray Kinaram waxa ay da'diisu gaadhay 150 sano waxa uu dhintay qarnigii 18 dhexdiisii Oghaari waa dad aad u xamilo duruufaha qalafsan waxay ku noolaan karaan cimilada ugu xun ee dadka caadiga ah dili karta amaba aad u waxyeelayn karta waxa ayna ku noolaadaan badanka buuraha barafku xidhay iyo waliba kulaylaha ugu daran ee aan dadka caadiga ah marnaba xamili karin haddii aynu eegno maxaa xaqiiqo ka ah sixirka madow ee dadkani adeegsadaan ilo wareediyo aad u badan ayaa arrintan xaqiijinaya waxaana la sheegaa inay sameeyaan sixirka madow balse cidna ayna dhib ugu geysan maadaama ay yihiin qalbi xabxabin aan cidna necbayn iyagoo sheegay inuu sixirkani ka caawinayo inay awood saa'ida yeeshaan sidoo kalena uu u sahlo inay meedka kula hadlaan alla ayaa si xaqiiqadooda inaga og haddaba daawada hore ma u maqashay dadkan iyo sheekadooda xog intee leeg ayaad ka haysay haddii aad maqashay nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga sidoo kale nagu soo biiro subscribe sar channelka si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada dambe annagana ay dhiirigelin noogu noqoto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh